السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان عرورت داوانيسا ما أنت وحانين هيا شيكة كله وآد وحس بدن شيكة دان وحالي هذا مقعدة عقلية هالشقيو واتقرانيسان عروري وحاجر عقلي يحوق marka xooga marmar badan ayuusan faa'iido badan lahayn aqliga waa muhiim inuu aqliga shaqeeyo sheekadii waxay ku bilaabanaysaa sida tan waayahay diyaar ma tihiin sheekada inaad dhageysataan oo daawataan diyaar miyaad u tihiin haddii aad diyaar tihiin waxaad oranaysaan diyaar baynu nahay diyaar baynu nahay waadin weydiinayaa diyaar ma tihiin baad leeyahay diyaar baynu nahay baad oranaysaan okay diyaar ma tihiin maya si fiican u dhaha xoog u dhaha diyaar baynu nahay haye waa ku soo celinayaa diyaar ma tihiin okay haye sheekadii haddaynu bilaabaynaa sheekadan waxay ku saabsan tahay wiil la yiraahdo cali iyo shimbir la yiraahdo boolo ama ceelal joog dadka qaar waxay yiraahdaan boolo qaar waxay yiraahdaan ceelal joog waxa loogu bixiyay waxay jeceshahay meelaha biyaha ka dhow okay sheekadii waxay ku bilaabaysaa sida tan عروري وحاجري جري ويل كاس مجلس وحلوري جري علي وحوها ويل آدي ونكسن وبارئة يبارئها والدكيس أبيس هوجديس ولاليس درسك مسلمين تا يدتك يدمان وحنولو إذل شخوخة من جري شخدي زمحيهات أريق أيو راعي جري أريق والا راعة قيلة والا راعة لوض والا راعة حقي لو راعة ميلها ديبدا يا لقينا يا كهل كران بات يوحي عنان عوسكا أما دوغا يبيها ميلها كهل كران يا لقيا معلوم والبا ديبدا يا لو سارة علي وحود دقنا رير كود دقنايين ميل ير أو تولأ هي دقنايين معلومها كميدا علي أريق أيو راعي wuxuu la aaday meeshii ay ka heli lahaayeen baadka waxay cunaan ay ka heli lahaayeen halkaas ayuu maalintu idin la joogaa cali asagu markaa dibadda jooga oo ariga ilaalinaya oo shaqadiisa qabsanaya laakiin caruuray cali ariga kaliya ma raac la socda waxyaabo badan buu qabtaa waalidkiisu caawiyaa sida waalidkiisu caawiyaa weelka ama bakeeriga ama saxanka wax uu ku cuno وميرا وحلا ودقا هاد بس أوتقانت محو سمية صحنكي السوقاتا ونذي فيها وهاجية سريرتي سنة وقبله سريرتي مركو كسوقع ويتوسيا هو يكال يتوسي أبا كال يتوسي مير هذا ويل في عنوة عقل الله كل سنة معها إذيك حتى ساساتين waxbaad samaysaan hooyaad caawisaan aabaad caawisaan sariirtaad gogashaan sax soo maha haddii aydan sidaas ahayn dhib ma laha hadda bilaaba waxay maanta ka dambeeya waxaad samaynaysaan sariirtiina dhag qolkiina meeshaad jiifanaysaan hagaaji bugaagtaada ha tuurin boorsada iskuulka ha tuurin kabahaaga meel wanaagsan dhig markaa maxaa samaysay waalidkaaga waa caawisay كلية ما هي أدينا واسعة وسي مرمر waxaa dhici karta inaad boorsadaadii iskuulka kala timid meel baad ku tuurtay marka meel ku tuurtid habeenkii iska saxatay suuxii baa soo kacday hooyo boorsadeedii meeday hooyo buugteedii meeday yaa mas'uulka ah waxa soo idil hooyo misaabo maya adiga mas'uulka ah hayloobin alaabtaada meel wanaagsan dhigo mar walbaba alaabta markaad raashinka cuntida iska hagaaji qashinka ha ku tuurin wadooyinka iskuulka guriga ha ku tuurin wax walba wasaq ah meel loogu talagalay ayaa jirta halkaas dhig insha Allah taala balan ma tahay ma sha Allah cali marka wuxuu kala qabtaa intaas kaliya qabtaa cali inuu ariga raaco oo gurigeena uu ka caawiyo kaliya maya quraanka ayuu bartaa
dugsiga ayuu tagaa malxamada muxuu sameeyaa quraanka uu akhriyaa wuu xifdiyaa wuuna ku camal falaa taa ayaa u sahlaysa inuu baari noqdo wax walba uu ku wanaagsan yahay quraanka markaad akhrisid iska seexa ma fahan ya ilaahay baa kula hadlaya quraanka markaad akhrinaysid waa kalaamkii ilaahay waa hadalkii ilaahay dhageyso fahan hooyo weydii aaba weydii baari noqo marka baari noqotidna waa ogtahay waalidkaaga ku jeclaanayaan aabuu ku jeclaanaya hooyo way ku jeclaanaysaa saas ma dadka taa ku jeclaanaya deriska ku jeclaanayaan waxay oranayaan wiilkan ama gabadhan baarisana ma maqashay qof la leeyahay qofkaas waa baari sababtoo ah waa qof wanaagsan oo dadka dhan si wanaagsan ula dhaqma ma kheeliyo ma dagaalamo ma xanaaqo qof idab leh way cali marka noocaas waxa cali maalmaha kamid ah waxa qabtay gaajo qabatay wuxuu yiri allah waqtigii raashika cunal heed baa la gaaray dibaduuna joogaa laakiin roodigiisu soo qaatay rootigiisa boorsadii ku jirta darin yar buu ka dhigtay rootigii ayuu dul saartay xagaasi ariga meesha ay jireen oo weeg u dhaweed ayuu aaday si uu caano yar ugu soo listo caanaha ka soo listo ariga muxuu ku sameeyaa markaas roodida ayuu ku cabayaa roodi qallan ma cuni karaa may waxaad u baahan tahay ama biyo ama caano ama waxyaabo kale aad ku cabtid markaas casiirka ya oo ku cabtid sharaabka oo aad ku cabtid baad u baahan tahay Soomaa marka muxuu haystaa isaga caanahana wax ka wanaagsan ma laha waa vitamin jirka ayuu wanaagsan yahay lafaha ayuu wanaagsan yahay uu baxay roodidii meesha dhigtay wuxuu aaday inuu caanihii soo listo sheeka halka ka dhacday marka si fiican u dhageysta cali intuu maqnaa uu ku maqnaa maxaa la yiraahdaa caanihii maxaa dhacay waxaa yimid maaragtiin boolo ama ceelal joog roodidii meesha saarneed ayay aragtay oo dirinta dul saarneed gaajana way heysay maxay sameynaysaa waana xayawaan maskiin ah roodigii bay iska cuntay markaasay farxaday ee dirinta isaga badbooday cali baa soo laabtay suu caanihiis wata wuxuu yidhi roodhigaaga ama rootigaaga cun caanahaaga nagu cab xaggaasuu ka arkay boolo ama ceelal joog ayaa dirinta ku dulbaboodayso faraxsan oo mid yar ah roodhigiina waa cuntay cali baa soo cararay halkaas qoorta ayuu ka qabtay dab rootigeygii ayaad cuntay waan xanaaqsanahay maanta roodhigeygii yar ayaa cuntay waa ku dilayaa laakiin keliya waxaan ka fikirayaa sidii aan ku dili lahaa ayaan ka fikirayaa laakiin aan ku dilayo layskuma haysto waa ku dilayaa xoogiisa ayuu la soo baxay maskiintan xoog ma leedahay maya waa shimbir yar xoog ma laha markaasay tiri allah maanta ku dhamaatay saasi u jaraysay way baqday maxaan sameeyaa waxay tiri aqliga isticmaalaya aqliga ha shaqeeyo shimbirtii boolo ama ceelal joog aqli ayay keentay waxay tiri waayahay hadaa doonta idil laakiin oo ku baryaya aniga dabaasha ma garanayo ma dabaalan aqaano marka waxaan ka codsanayaa biyahaas webiga ah ha igu tuurin dabaal ma garanayo aniga oo ku baryaya ali baa yiri waa fahmay haddaaba helaba sidaan kuu dili lahaa waa fahmay okay waxaan sameynayaa biyaha baan kugu tuurayaaba la soo carar shimbirtii u qaatay la cararay wabigii buu la galay uu kula dhex socday halka biyaha halka meel dheer markay u siiri meeshaan meel ka bixi karta maha halka isaga biyaha u joogaan ayuu ku tuuray markuu ku tuuray way saantii lugaha u wareejisay ee u dabaalatay bay gadaal u soo egtay waxay tiri waa ka aqli badiyay aniga horta magacayga ma garanaysaa bay tiri
magacaaga muxuu ahaa magacayga waxaa la yidhaahdaa ceelal joog ceelal joogna waxaa liigu bixiyeyba dabaasha ayaan si fiican u garanayaa biyaha waaba gurigeygaba biyo aniga kuma dhimanayo adiga un baan kugu talagalay inaan ka caqli badiyo inay disho ayaan ka baqaaya haddana maca salaama way carartay iska dabaalatay aliba xanaaqay alla wuxuu yidhi oodigaygiin way cuntay wayna ii caqli badisay laakiin wuxuu yidhi khaladka aniga waayo aniga sababto wuxuu yidhi markii ay roodiga cunaysay maskiin bay ahayd way gaajeysneed aniga oo kale ayay ahayd markay cuntay inaan iska dhaafay ahayd inaan dilo waa ku dila inaan yidhaahdo maba ahaynba qalad baan sameeyey maanta qalad baan sameeyey waa inaan qaladkaas ka toobad keenaa ilaahay cafi inaan yidhaahdaa ilaahay baan baryayaa aabbahay hooyadana u sheegaya maanta qaladka aan sameeyey caanaygaan iska cabayaa bis khalaas waa iska aamusaya cali iska aamusay guriga ayuu yimid aabihiis hooyadiis wax walbaba ugu sheekeeya wax walba dhaco wuu ka sheekeeyaa cali maxba ma qariyo hadduu qalad sameeyo hadduu sax sameeyo wuu ka sheekeeyaa idinka marka ma ka sheekaysaan marka iskuul ka timaadaan ma ka sheekaysaan aabba hooyo ma ugu sheekaysaan maanta waxaasaa dhacay maanta wax wanaagsan baan sameeyey maanta wax xun baan sameeyey maanta qalad baan sameeyey maanta sax baan sameeyey ma tirahdaan mise waa iska soo gashaanoo salaamu calaykum iska fadhiisataan maya ka sheekeeya maanta maxaa dhacay iskuulka maanta siduu ahaa macalinka ama macalimadda sidee ahayd maanta iskuulka ma wanaagsana ma dhibbaad samaysay ma gardarootay ma laguu gardarooday ka sheekee waxaad tidhahdaa hooyo ama aabo 5 daqiiqo ma heli karaa 5 daqiiqo waan kula hadlo haye ku oranayaan 10 qaado 20 qaado 30 daqiiqo qaado ku oranayaan maya 5 baan rabaa TV-ga naga damiya telefoonada naga damiya na soo fariisiya xagee la fariisanaya guriga dariina soo mataalaha darinta fariista markaasna ugu sheekay wixii ka dhacay meesha aabaha hooyada way fahmayaan way dhageysanayaan markaasna talooyin ayay ku siinayaan oo wanaagsan wali ma garateen marka caruuray sheekadanu waxay ku saabsaneed caqliga ha shaqeeyo wax walbaba xoog iyo cunfi maaha waxaa dhici karta marka qaarkood walaalka ka yar ama walaasha ka yar in ama ka weynba in nacnac yaro meel dhigtay uu ka cuno ama ka cunto maxaad sameeysaa marka maxaa naqdaa ma tiraahdaa sidii cali oo kale mis waxaad tiraahdaa ma cuntaha ana iska laha laakiin ay weydiisada ayaa wanaagsanaan lahayd maxay weydiin weysadii laakiin iska cun sababtoo ah wax walba oo la cuno oo caloosha galo qofka maxaa ku dhacay markaas suuligu geynaya masqusha saxaroonaya marka wax lagu dagaalamo cunto maaha haddii laga cuno okay dhibaato ma laha markaas haddaad tirahdo walaalka ama walaasha dhib ma laha maadaa cuntay haa dhib ma laha walaalo anaa iska laha laakiin dhibaato ma laha wuu fahmaya ama way fahmaysaa wallaahi sax waay inaan ka cuno mahayn waxaa laga yaabaa inay hadiyad ku keento ama wax kale ku keento ku tiraahdo ama uu ku yidhaahdo hoo aboowe ama abaayo ما فهمتين تسامح إن الإسعافية إن الجعلادو إن ولالك جعلاتيد إن ولاشا جعلاتيد ومهم وحول بنا لسكم قبصدو سي أنا أسكيل أنا مركب حي استعمالي سنة مركب حوق ساس كل دين حوق استعمالي سنة وسيد علي واستعمالي شمرته كو استعمالي حوق ملو بهاي وهي حلو بهاي عقلي سيدي بهاشان شبرتان اسميسي إلى الجو قالوا بهاي فكر مسكو خبصتين ها أديك ما لها ها أوكي وكود داي هذا أديك اللي يضحي هذا قف كاس كل وليه وده يبعت ماله قف كاس مركز حورنا يا الله ولا قف كم وهباري ما يدام كود داي وزعلان يسا مركز والد كان بارح على نقطه شيكدان انتينو شيكه كله كغاري دون ان شاء الله تعالى وحان اذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته